maanta waxaa magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay xubno xildhibaana oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ku baaqay in guddoomiyaha aqalka hoose baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cusmaan jawaari uu iscasilo arrintan ayaa imanaysa iyadoo qaar ka mid a xildhibaanada iyo guddoomiye jawaari ay ku eedeeyeen xukuumadda inay iyadu ka dambayso mooshinka muranka siyaasadeed dhaliyey wariyaheena maxamed colaad xasan oo haatay istuudiyaha nagu weheliya ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya. mahadsanid maxamed. xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay muranka u dhexeeya guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa cirkas ku shareeray khamiistii lasoo dhaafay markii xubno baarlamaanka ka tirsan oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada ay mooshin ka geeyeen guddoomiye jawaari iyo xubnaha baarlamaanka ee taageersan ayaa ku tilmaamay mooshinkaasi mid aan buuxin hanaankii sharciga kadib markii sida ay sheegeen 16 ka mid a xubnihii soo gudbiyey ay ka laabteen. waa kan maxamed cusmaan jawaari oo ka hadlayay mooshinkaasi. mooshinka asaga ah oo aniga layga keenay waxay ahayd sida laydinku sheegay 107 qof saxiixnayd, laakiin waxaa ka noqotay sida la hubiyey 16 qof, 91 baa kusoo hartay, hal qof keliya ayaa ka maqnaaday. haddaba arrintaasi ma aha arrin mushkilad ah, waa arrin u taalla xildhibaanada sida caadiga ah barlamaaniyiinta dhan caalamka dhanba waxa weeyaan waa kala ra'yi duwan yihiin. haddii qofka shaqadiisa xumaato ama maamulka si kale uu ka hadlaabo in la iska bedeli karo ama kalsoonida lagala noqon karo waa arrin jirta oo dhab ah, xaq ana in la sameeyo. hase yeeshee waa lagama maarmaan inaan marna dastuurkii la baalmarin, waa laga maarmaan marna in maraa sharcigii aan cidna loogu turin oo la waafajiyaa. mooshinka asaga ah hal qof baa ka dhinaaday, saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin, marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa. waxaase meeshuu ku haray sida hadda qaanuunka u yahay, guddiga joogtadana ay hubiyeen, guddoonkii isku dhanna meesha ay joogeen qireen oo ay ku baareen. alxamdulilah. si ka duwan fikirkaasi jawaari iyo taageerayaashiisa ay qabaan mudanayaashii soo gudbiyey mooshinka oo u badan xubno ku jira golaha wasiirada oo maanta muqdisho kulan ku yeeshay ayaa sheegay in sharciyan aan laga noqon karin mooshinkaasi. cidi kama noqon karto marka la aqbalo kadib ilaa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa golaha shacabka dhex ka daba imaashanaya. waxay tahay codkaagaad leedahay, doodaada ku sheeg, sanduuqaagana ku muuji. 184 mooshinka hadduu gaari waayo, maxamed sheekh cusmaan jawaari waa guddoomiyihii golaha shacabka. hadduu gaaro 3/2 15 beri gudahood golaha shacabka wuxuu soo dooranayaa guddoomiye kale. waa wax cad. codkaasina waxay ahayd Khadiija Maxamed Deeriye oo ka mid ahayd xubnihii golaha wasiirada ku jira iyo baarlamaanka ee mooshinka soo gudbiyey ee maanta shirka ku qabtay magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku dhow dhinacyada ishaya ayaa VOA-da u sheegay in muranku uu muddo soo jiray, isla markaana ay jireen qorshe dhinacyada iska soo horjeeda ay ku doonayeen inay midba kan kale uu u adeegsado baarlamaanka si uu meesha uga saaro. guddoomiye jawaari ayaase ku tilmaamay mooshinka hadda muranku ka taagan yahay mid isaga aan loola jeedin ee weerar ku ah madax bannaanida iyo shaqada baarlamaanka. ujeeddada ma aha jawaari meesha ha laga qaado. ujeeddada waxaa weeye anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa, in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa, lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo midaan jirin, ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka 8aad in laga dhigo ayaa cad, in la kala diro golaha shacbigana u markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin, xilkiisana gudan karin. jawaari waa qof berituu ka tegi karaa, anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya, qof kursiga martaa awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi, ligumana soo barbaarin. dhinaca kale beesha caalamka ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka inay murankooda ku dhammeeyaan wada hadal si aan loo burburin sida hadalka ay u dhigeen mirihii iyo guulihii laga gaaray dowladnimada Soomaaliya iyo nabadda. baaqa beesha caalamka oo lagu faafiyey war qoraalo oo ay soo saareen soona baxay xalay ayaa ku soo beegmay waxyar kadib markii dhismaha baarlamaanka Soomaaliya la geeyey ciidamo kala wareegay kuwii hore halkaasi ugu sugnaa. jawaari ayaa ciidamada ku tilmaamay kuwo uu ka dambeeyo ra-iisul wasaare Khayre, mas-uuliyadeedana uu qaadayo. dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan markaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin. waxaa mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego. taa ayada ah shacbiga ha ogaado, baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro, waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha. amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay. mas-uuliyaddaasi asagaa iska leh, ama ciddii kala dambaysa oo la wadaagto asagaa yeelanaya.
dhinaca kale waxaa socdo dadaal ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xaaladda oo ay wadaan culamo udiin xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamka. muranada noocana ee sababa ismariwaaga hay-adaha dowladda kuma cusba dhagaha dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka. tusaale ahaan 4 madaxweyne ugu dambeeyay tan iyo 2004 waxa soo maray murano noocana oo u dhaxeeyay iyaga iyo ra'iisul wasaarayaashoodii. dabcan gudoomiyaashii baarlamaanaduna ay ku lug lahaayeen maadaama ay ahaayeen daabka midida mooshinada iska soo horjeeda ee noocana. muranadaasi waxay meesha ka saareen 6 ra'iisul wasaare oo celcelis ahaan xafiiska joogay wax ka yar sanad iyo bil. waxaana ku jiray madaxweyne Farmaajo oo ra'iisul wasaare soo ahaa muddo 7 bilood sanadkii 2011. aad iyo aad mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay muranka siyaasadeed ee ka soo dhex cusboonaaday qaybaha fulinta iyo sharci dejinta ee dowladda Soomaaliya.